أيوه أولاً مرة القطيع حيوانات أيوه تاسو إنه قفوا بوجرنا يعني ده سنة قيمة أيوه iyo sida waxa badan ee Soomaaliya ay soo kordhisay awlaadda barbaarasay maadaama ay tartiibka koowaad ee intaanay qoys walba u taalayay xidmad moora iyo quud maskaxaan ay ku helo oo aan weelka dayacana aan hooyaa dadaaran iyo walaalaha iyo xidmadaan isine bay ay tarbiyanaysaa waxaan jaamacada ama la sano soo xigana jaamacada isku baran bay ay nabaraysaa inuu inta jiray gaari waxaan ku geeyan kusoo urunay dhammaantii bedihii dardaaran waayanimadii ayayo iyo murtidii muuqahayd dadweynaha ayay dhahay anoo aad u ladhigay gacanta ayayo sheekadii ayayo naxariisteedii iyo jacaylkeedii iyo dee dharkooda garanayaan cawiis kala gaadho si walba ay dhalinyarada loo cawiysaan carabta ugu yeedhay sheekooyinkooda hore oo ay midadeena aan ka hadleekay waayaarnimo ka tahay bay dadka aad u reecdaan oo u sheekaysaan marka gurigii dhammaan ay kristi ayay kuwaan ayeeyooyinka macal la korin aanan ku jiraa markay madrasada tagaan guriga ayay ku dhiman jireen dhammaantiin ayay beelo waaweyn bay nagu taallaa inta ka dhimatay ee bahaw raxmado intay nool yihiin ee bahaw ilaaliyo barwaaqo maadaama ilaa hadda ay gacanta ku hayso qoraalka buugga iyo xogtiisa ayay door intee lag bay ku leedahay qoraalka buugga door intee lag bay ku leedahay maxay ku darsatay ayay qofka ku qoraalka inkastoo buuggan aan buuggan ayay kala qorayeen yahay buuggan dhammaan ayay Soomaaliyeed oo dhan aan ka wada qoray haddana ayay waa tii aan ayada la'aanta buuggan baan qoray maadaama iyagu ay dhammaan wanaagida iyo tactiirkada kala duwan ayay soo qoray buuggan qayb ka tahay shacabka caafimaadka inta dhimatay oo xarasoo galab jumcada way bahaw raxmado dhammaan intii waalidiintood dhinteen intay nool yihiin bahaw daayo barwaaqo weydiin kale ku soo dhawaada intaanan meega halka kale u sii gudbinin barwaaqo marka ay laga warramayo wax laga warramayaa hooyo soo kale wax laga warramayaa haween guud ahaan bal ayeeyo maxaad mid iyo laba ka sheegi kartaa oo inta kale inan walba barteeda ayeeyo ma ku tahay hooyo walbaana barteeda ayeeyo ma ku tahay farqi nooceeya soo dhaxeeya marka hadda ka warramayna ayeeyo ma qof gaar uga warramaynaa mise haweenko dhammaan ka warramaynaayo ma garanaysaa qof ka si gaar aan ka warramay laakiin ma haween baynu ka warramaynaa waxay wadaagaan maxay ayay si gaar la sii tahay way si wanaagsan haweenka badan ka warramayna ayay si gooni ka warramaynayo ayay waa qof dee waa qof waqtiga dheer ee nololeed dadkan tacaqado badan waayaarnimo badanna noloshan ka aragtay markaas ayay haweenku dardaaranayo waayaarnimo aanay siinay iyo sheekooyin aan ka dhahay bad ayay ka dhaxlaysaa marka ayay oo garan karaa qofsina haweenkii si gooni way uga magacaabay ay xaq walba uga facweeyay talooyin badan mid ma ahay kuma yaqaan tahay laakiin talada ugu adag ama dadka farna haween ku dad nolosha casriga waayo waxaan joognaa in isbedelay oo ay nolosheeda ka tahay marka muhiimadu ugu weyn waxay tahay tarbiyada ku soo bilaabantay yaraanta dhaqan walba oo wanaagsan yaraanta ku soo bilaabantay kulli haweenana si gaar ah oo aanay barwaaqada dadaaranto يكون نحتاج إلى هذه التطبيقات وهي وقت تعتبر وهي التطبيقات اللي تستخدمها يعني هذا الفيديو تعتبر مثقال أو نفتدي صور بنا أنا فعلها أبغى في وينها الحساسية هي وكيف يسمى كشروها كان ممكن يلا قيد فيها وهذا أنا بعدالتي وحبيت سوايا رجيلة يتفهمها أي وقت روح إلى لسان كذا كذا تسليم وفهمها هاي oo yar dhaqan baxda waxa xumaanta dambe ay si baraysan marka ay barakay isuna abwaankaasna adan si sharxo madal bilan qoran maanta bilaabo waa dhammaan abwaanadii hore iyo halaabada hore meel ay ka taaban laakiin ama nasiib oo yeesho qofka koowaad ee ma soo tiriyana anoo barwaaqo waxaan ahaa qofka koowaad ku qoran meedan qorayaashii halaabada hore badan ay yara hilmaamaan yaa roo ilaahay marka aadban dhammaan dadaaranadii iyo xigmado kuwaasoo aan tiro lahayn buuggan aad ugu tegi doontaan insha allah